السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووالكي فرحان. إن شاء الله waxaan xasuusiyo maalinta Isniinta October 23 waa maalinkii ugu horeysay oo dib loogu salaamayo programkii after school programka ah. Sanadkan waxyaabo cusub ah jiro macallimiin cusub oo high qualifier keenay. Also waxaan u sameynay center aad u weyn oo qaadaya ilaa 100 caruur ah oo wuxuu leeyahay computer lab, wuxuu leeyahay qolal badan aan ku dhigno programadii. cunug walbana wuxuu heli doonaa laptop iyo headphones si maadooyinka oo kobciska uga dhageysto. waxyaabo sameyn doona ardayda waxay noqon doontaa ardayda waxaa horta fasalka kindergarten ilaa high school waaye ardaydaas isu dhex jirto. homework in laga caawiyo in maadooyinka uu ka liito cunuga laga dhiso oo kor loo qaado. sababta waxay tahay dadka Jefferson County-geena ardaydeena since COVID kulligood hoos u dhacayn, marka in kor loo soo qaado ay u baahan yihiin grade-kooda. waxbarashada sideeda waa waxyaabo ugu muhiimsan oo looga baxo faqriga iyo baahida. caruurteenana in aan gaarsiino heerka ay joogaan dadka waddankan la deganahay, because waxay helaan fursado in caruurteena haysan. so fursadahaas wax ka mid ah after school activities inay helaan caruurta, inay helaan macallin ka caawiyo maadooyinka dhibaayo, inay helaan mentor. intaasoo idin insha Allah ayaa u sameynayaa. waxaan bilaabeynaa maalinka Isniinta October 23. addreskana waa kana, waa dabaqa oo xawaalada ammaane ay ku taalo room 200. waa meel aad u weyn, imaa soo fiiri, macallimiinta la kulan, maamulayaasha la kulan, caruurtana fursadaha loo soo bandhiga waana free, lacag laskama rabo. waa barnaamij aan ugu soo talagalay community-ga in lagu caawiyo. marka insha Allah dad daawanaysid waxaa weeye saa ogahay waana soo buuxisay application-ka. haddaa application-ka buuxinina insha Allah Monday-da ilaa Arbacada saddexdaas beri waa programka. waa Monday, Tuesday iyo Wednesday, waa 5 p.m. ilaa 8 p.m. marka waa inaan 5 imaadaa si aad u qaadatid all the activities-ka. caruurtana meesha hala keena waa meel safe ah insha Allah. waxaan leeyahay assalaamu calaykum.